السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاليال كسو دوادا أخيغا مستر دوعي ساري انتوان المقالك بلابين أنكو حسوسي إناد مقالك لاك سارتوا muuqaalka maanta wuxuu ku furmayaa gudaha Japan halkani waxaan ku aragnaa nin burcad ah oo dhiganaya xafladiisa 75 sano jirka balse xafladda meesha ka jirtay hal mar oo qura ay isbadashay markuu soo gaaray war ah in hadda iyaga ciidamo ay ku rad jiraan laakiinse aad ay iskugu kalsoona waayo waxa uu lahaa yeedad on ah yeedi ayuuna u diray dhinacaya albaabka say u soo hubiso balse waxa la yaab kale yeedu markiiba way istaagtay waayo waxay meesha ku aragtay hogaamiyaheena sheekada ugu muhiimsan waana kabiirsan waa nin dabagala oo markaasi soo afjaara burcadda khatarta ku ah wadankiisa kabiirsin markii ugu horeysay oo ay arkeen waxay u haysteen inuu xadir kooxad badan u wato laakiinse waxa uu u sheegay inuu xadir keligiis uu yahay tani oo odayga la yaab ku noqotay raggii oo dhami oo uu ninka burcad ka lahaa ayuu bilaabay inuu mid u dilo maadaama uu yahay askari si khaas ah loo tababaraya odayga 75 jirka waxa uu isku day inuu meesha ka cararo isagoo helikobtar qaataya maajir kabiir ayaana markiiba ka raadaharin isla markii pilotka ku dilay diyaaradin sida ay meesha ugu qaraxday hadda howlgalkiisii Japan ayuu sidaani ku soo dhameystiraya kadib muuqaalka ay u laabanaya Berlin ee Jarmalka waxa uu la kulmay mid ka mid ah madaxda howlahan u dirtay haweeneydaasi waxay ku casuuntay inuu mar dhow la kulmi doono burcadda kuwooda ugu khatarta badan iyadoo weliba ugu hambalyeynaysa inuu xadir howl khatar ah gacanta la gelayo markiiba kabiir sidii ayaa la bilaabay in lagu suuxiyo sidoo kale muuqaalka ayaa u laabanaya xarunta ciidamada cirka ee gudaha Hindiya halkani korneelka qaybta ciidamada ugu sareysa gabadhiisa Ruuhi ayaa waxay noqotay qof pilot dhameystiran aabihiina waxa uu bilaabay inuu habeenkii xafladda gabadhiisa kula dabaaldego dambe kabiirsan waxa uu ka kacay mid ka mid ah buuraha Himalaya halkaas waxa iskugu timaaday gaangisrida ugu waaweyn wadan walba burcadkooda iyagoo weliba hadda diyaar u ah burburinta isla ninkani wadanka uu ka dhashay madaxdaasi wadan kasta qof ay ku leeyihiin qofkaasi ayaana howlgalka gudaha wadanka uga qabtaa iyagoo shirkad isku xiran sidoo kale lacag iyo hanti iyo maamuus aad u sareeya ay dadka siiyaan qofkii shaqadiisa aad u canaatana madaxda ugu sareysa ee go'aamada gaara ayaa kursi laga siiyaa hadir waxa uu rabaa inuu arinkaas oo dhami ku biiro mid ka mid ah burcad ugu waaweyn ee qaybta Hindiya qaabilsan ayaa isaga la hadlaya isaguna waa uu ogolaad inuu ku soo biiro hawshiisii ugu horeysay ayaa loo diray cid kale ma aha ninka loo diray mar waa ninka ugu beegan booska aabanimo marna waa tababarihiisa khaaska ah ninkan oo ay adag tahay inuu dilo balse waxa uu kabiir ku tilmaamay inuu yahay nin toog ah sheekada ayaa dib u laabanaysa tagto hore 2 sano ka hor ee maantada Amsterdam markii uu joogay askarigaasi ayaa waxa uu uga waramaya macluumaadka kooxdani isaga waxa laga dhigay dagaalyahan qarsoodi ah oo ku aftirsada wadanka India waqtigaas ayuuna u sheegay kooxdani qaabkay u dhaqmaan kadib uu soo kicay meel cilla ayuuna keenay waxa uu raba inuu dilo askarigaas waxa uu ku yiri si aad wadanka u badbaadisid ogsano orahdii weligay aan ku bari jiray wax walba Hindiya ayaa ka sareysa xitaa naftayda Hindiya ayaa ka sareysa si aan adiga lagu aqoonsan waa inaad aniga idisha oo aad iyaga ka mid noqota si aad dhammaantood u wada disho aad ayaa ugu adkeed inuu macalinkiisa marna aabihiis uu hortiisa ku dilo balse wadanka dartiisa ayuu bilaabay inuu sidii meesha ugu dilo dilkaasi kadib ciidamadu aad ayay uga argagaxeen maadaama korneelkooda la dilay khaasatan gabadhiisa Ruuhi isla markii muuqaal cadeen ayaa la tusaya waa markuu kabiirsin falka sameynayay kabiir ayaan aragna aad ayaa loogu mahad celiyay ninka u fadhiya qaybta India ayaana soo dhaweeyay waxaana loo sheegay in jagadiisa mar dhow loo diyaarinayo uuna noqdo qof sidoo kale daacad xubnahani ka ah aad ayana waqtigaasi oo la dhicin geesinimada kabiirsin ku jirta maalinkii la diyaarinayay tacsida korneelkaasi waxaa meesha yimaaday korneel Vikranti ahna madaxa ugu sareeya ee hay'adda dambi baarista ee Row ee gudaha India taasidaasi kadib xarunta Row waxay u sheegtay in gacanta lagu soo dhigi doono ninka korneelkaasi dilay maalinkii dambe xarunta Row ayaan aragna qoliyo burcad ah ayaa waxay qafaasheen qoliyo masaakiin ah iyagoo garan la siday dhismaha ku gal lahaayeen laakiinse waxa afka lagu dhiistay inuu howlgalkani soo dhameynayo kabtan kale oo sood ka soo jeeda
waa maajar haysta biladaha ugu sareeya ee ciidamada waa maajar Vikram gudaha xarunta keligiisi ayuu soo galay isagoo weliba ilaalada hore meesha ku dilay qaabkooda ayuu isku ekeysiiyay askartii loo baahna ayuuna bilaabay inuu sidii ku wada furfuro kadibna markabkii ay haysteen oo dhami ayuuna sidoo kale meesha ku qarxiyay howlgalkaasi Vikranti ayaa aad ula dhacay waxauna dareemay inuu ninkan uu yahay nin geesi Vikram kooxda ro ayaa lagu soo daray si uu markan uga qayb qaato inuu gacanta ku dhigo Kabir laakiinse isagoo Kabir waxba uma arko waxa uu arkaa shakhsi caadi Kaavya waxay sheegtay ninkaasi wax reer ma laha laakiinse waxaa jirta hal meel aynu ka weerari karno waqti gabar ayaa la shaqayn jirtay gabadhaasi ciidamadani ayaa dilay laakiinse gabar yar ayay dhashay Isbeen ayaynu ku nooshay waxaana la bilaabay in gabadha yar dabagal lagu sameeyo maalintaas inta ay kuleejkeedii galin fariin ayaa uga timaaday Kabir waxa uu sheegay inay rabaan inay la kulmaan meesha ciidamada row oo dhami ayaa jooga Vikram waxa uu sheegay ninkaas hadduu iska da'o inuu magaalada ka baxanig ayaa bursanaya Kaavya ayaana qaybta gudaha loo diray isla markiiba waxaa soo gaartay fariin in kooxda row meesha joogto gabadhii yareed ayuu ku amray inay dhinaca jihada kale u orado halka isagiin uu kaniisad meesha taale uu galaya ragii meesha joog ayuu mid oo la dagaalamay gabadhiisa yar ayuuna u sheegay inay hadda baabuur ilaa markii dambe Kaavya ay timaaday hal su'aal ayay weydiisay ma adiga ayaa aabahayga dilaya laakiinse su'aashaas inta uusan ka jawaabin waxa uu isku dayay inuu markaasi biskoolada ka qaado iyadoo maadaama ciidan ka tirsan tahay si adag ay u dagaalameen balse meesha ayuu ka baxsaday labadooda waxaa markiiba ka hor yimaaday Maajar Vikram ma aha nin qosla markiiba waxa uu bilaabay inuu si adag iyaga u cadaadiyo sidoo kale booqaasi ciidamada Isbeen ayaa soo galay isaga ayaan bartilmaameed kala ugaarsanayo mar dambe Maajar Vikram isaga dabin ayaa loo dhigay sidii ayuuna baabuurkiisa ku halaabay laakiinse wajahada wadada uu ka bixi lahaa ciidamadii ayaa dhinac walba ka soo xiray xitaa qaybta dambe ciidamada ayaa ka soo xiraya Vikramna waa uu soo baxay isagoo weliba qori aad u culus wata hadeer doorashadu hays aad ayuu adag yahay gabadha yar waxay garowshatay falka uu rab inuu ku dhaqaaqo markiiba dhinaca Vikram ayuu orday bundada ayuuna ka booday baabuur tareen ayuuna korka ka fuulaya laakiinse dhibaatadaas ayaa waxay keentay in gabadha yar ay ku dhowdahay inay baabuurka ka dhacdo markiiba Vikram ayaa yimaaday oo cunugta yar sidii meesha ku badbaadiyay tareenku waxa uu ku dhow yahay inuu markani godka uu ku qarxo Vikram hadir wada kale ayuu qaaday inuu shacabka uu badbaadiyo qaybta hore ee tareenka ayuuna sidii ku kala furay labadoodan waxay bilaabeen inay tareenka iska tuuraan oo ay biyaha ku boodaan gabadhaas waxa uu keenay deegaan yar oo ay ku nooshahay isaga ayeedii mid kale ma waa hooyada dhashay Kabtan Khalid maadaama ogtahay inuu ninkan uu yahay nin wadankiisa daacad u waayo ogolaad inay hadda gabadhan halkan ku hayso in muddo markaas Vikram fariin ayaa u soo dhacday akoonkiisa ayaana fariin message loogu soo diray waana kulan ay labadooda ku yeelanayaan gudaha Isbeen labadooda way is arkeen aad ayuun uga hambaliyay sida xirfada leh oo uu ku badbaaday Kabir waxa uu sheegay inuu Britol u ambabixi doono howl khatar oo uu qoys oo dhami soo afjari doono qoyskaas oo weliba lug weyn ku leh siyaasadda India sida dhacday qoyskaasi iyagu India ayay u soo socdeen markiiba diyaaradoodii ayaa gacan lagu dhigay Kabir ayaana bilaab inuu iyagoo dhan amar ku siiyay halka iyagii oo dhamina cunto lagu soo xiyay Kabir iyo ciidamadiisa markiiba diyaaradda ayay bilaabeen inay gudaha u soo galaan laakiinse Vikram ayaa jooga oo bilaab inuu ilaalada si adag la dagaalamo Kabir markii waxa uu garowshay inay wax khaldan yihiin waxa uuna meesha ku arkay Vikram waa uu soo degay si ay markaas labadood u dagaalamaan laakiinse markaas waxay ku dhawaayeen inay diyaaradda dhacad waxayna bilaabeen inay garab isa siiyaan gudaha diyaaradda ayayna markaasi soo galeen qof walba meesha ayuu ku soxsanaa Vikram waxa uu yiri dadkani nasiib badana waayo iyaga oo soxsan ayay dhimanayaan markiiba Kabir waa uu garowsaday in ninkan sidoo kale qorshaha qayb ka yahay isla raggii loo soo diray ayuu meesha ku wada dilay tani aan ogaaneen in Vikram uusan lahayn sidoo kale weji daacada Kabir ayuuna bilaab inuu duulimaadka uu ka tuuro waxa uu ku yiri hadal uu ku yiri isla caruurnimadiisa Kabir kaymaha markuu yimaaday hadalkani ayuu xasuustay waxaana jirta taariikh aad u hore waana waqti uu yara koox dhalinyaro ayana waxay bilaabeen in isaga ay hareereeyaan raggaasi mindiya ay wateen dhinac walba ayaa laga dhaawacay balse Vikram ayaa yimaaday oo badbaadiyay markaasi waqtigaasi Raagaf ayaa la oran jiray hadir ayuuna magaca bedeshay labadooda sidii ayay meesha uga soo baxeen waqtigaasi Vikram kani oo yar waxa uu ahaa nin aad u xariif oo dagaalyahan Kabirna ma haysto meel uu aado hooyadii aabii waa ay dhinteen waa isaga keligii waxayna go'aansadeen inay labadooda wada noolaadaan
waxa uu sheegay inuu tug yahay oo uu qayb ka baro isla xirfadda tuuganimada. sidii ayaa dhacday, waxay dadka ka soo xadaan ayay labadoodu ku noolaan jireen. markaasi Vikram ayaan isaga tababaraya. Vikram ayaana dhinac walba kaga horeeyay, tani oo keentay inuu markaas isagan uu noqdo qof aad u xirfad badan. raggani waxay noqdeen rag asxaab oo weliba nolosha ku midooba, laakiinse tuuganimadooda ma sii soconin ilaa markii dambe Kabiir ciidamadu ay gacanta ku dhigeen. Vikramna waxa uu ku qasbanaa inuu waqtigaas isdhiibo. qaybta xanaanada caruurta ayaa la keenay, halkaasi caruur badan oo bilaa waarid ah ayaa jooga oo saldhigani lagu hayay. markii dambe isla korneelkii ayaa u yimid caruurta, ayuuna bilaab inuu u khudbadeeyo isagoo qof walba u sheegaya dhammaantiin hadda shaqo xun ayaa gacmaha kula jirtaan, laakiinse hadeertan waa inaad wadankiina u shaqaysaan oo aad ka mid noqotaan dadka sharafta leh ee wadanka. labadooda waxay go-aan markaasi ku gaareen inay ciidamo ay noqdaan. iyaga oo dhami waxaa la bilaabay in la tababaro. qof walba waa la wareysanayay, balse Vikram dhammaantooda waa uu ka duwanaa. waxa uu isku haystay inuu qof walba isaga ka sareeyo, halka Kabiirna uu aaminsanaa in wax walba wadanku ka horeeyo. interviewgaasi labadooda laga qaaday, balse habka xirfadooda jireed waxay ahaayeen kuwa same ah. maalinkii dambe waxaa la gaaray waqtigii la kala sooci lahaa ardayda. Kabiir ayaana la doortay, Vikram ayaana laga tegaya. Vikram waxa uu taliyaha weydiiyey, maxaa keenay inaad aniga iga tagto? waxauna ku yiri, adigu waad kibirsan tahay, wax walba waxaad u haysataa inaad adiga ka korayso, laakiinse waa inaad aamintaa in wadanku wax walba uu ka horeeyo. 6 bilood kadib ayaana halkani kusoo laabanaya. hadalkaas aad uma qancin. weli Vikram waxa uu aaminsan yahay inuu go-aankiisa saxsan yahay. Vikram waxa uu go'aan ku gaaray inuu waqtigaas meesha iskaga tago oo uu burcada ku biiro, laakiinse Kabiir arrinkaas waa uu ka soo horjeesaday. Vikramna waxa uu go'aan ku gaaray inuu keligii meesha ka tago si hoggaanka noloshiisa u qabto. tani waa sheekada yaraantoodii soo dhex martay, qof walba dhinaciisa ayuu ka ogyahay. hadda Kabiir go'aan kale ayuu gaaray in ninka qaybta go'aamada Hindi u fadhiya inuu isagoo dhami ka takhaluso. markabkiisi ayuuna markaasi ugu dul yimaaday. Kabiir waxa uu rabaa inuu booska ninkaas uu galo, markiiba isaga oo dhami ayuu gacanta ku dhigay. laakiinse inta uusan dilin oo uu dhammaystirin, xabad ayaa garabka lagaga dhuuftay. cid kale meesha ma iman ee Vikram ayaa yimid. Vikram ayaa ku yiri, saaxiibkayga adiga waan kuu xiisay, muddo badan ayaana ku sugayay. Vikram sidoo kale qolyahan ayuu ka mid yahay. booska uu u tartamayo Kabiir ayuuna isna u tartamaya. isaga ayaaba ninkaasi gacantiisa ku dilay. labadooda waxay ku tartamayaan inay ka mid noqdaan madaxda ugu sareysa ee qolyaha gaangiska, balse aragtida ayaa kala duwan. Kabiir waxa uu rabaa inuu dhammaantooda oo dhami burcadaas uu baabi'iyo. Vikram oo raba inuu markaasi Kabiir uu dilo, markiiba bamba meesha taal ayuu sidii ku qarxiyay. waxa uuna isku day inuu baxsado, halka Vikram uu ciidamada ka tirsan yahay eedda oo dhami Kabiir ayuu dusha ka saaraya. Kabiir ayaana la bilaab in dhinac walba laga baxsado, ilaa markii dambe u suurta gashay inuu si xirfad leh goobta uga badbaado. kooxda Ro waxay bilaabay inay markaasi baaris ay sameeyaan, iyadoo wax walba uu ku eeday inuu Kabiir ka dambeeyo. laakiinse Kaafiya meesha caddeyn yar ayay ku aragtay, taas oo go'aankeedii oo dhami bedelaya. waa faraanti yar, taliyaheedii ayay ka dalbatay inay howlgal qarsoodiya u baxayso. sheekada ayaa dib u laabanaysa 15 sano ka hor, markii labadooda waqti dalxiis ay ku joogeen Spain. waxay ahaayeen dad calaaqaad iyo sidoo kale jacayl ka dhexeeyo. waqtigaasi Kabiir waxa uu ka mid ahaa isla askarta qarsoodiga ah. waqtigaasi Kabiir waxa uu ku jiray waqtigiisii ugu dambeysay ee tababarka. marka iyadoo hadiyad ahaan waxay u keentay faraanti ay xabad ka samaysay, iyadoo weliba ka dalbatay inay labadood isguursadaan. laakiinse Kabiir waa uu ka diiday. waxa uu sheegay, adiga aabbaha aniga ciidan igama dhigeen, balse dagaalyahan ayuu iga dhigay. waa inaan horay u socda, reer iyo qoysna ma samaysan karo. haddii aan adiga ku guursado, adiga markiiba waa lagu dilayaa. haddii aan tallaabo gadaal u qaadana, mid kaloo iga dambeeya ayaa jira oo aniga dhafoorka iga tooganaya. sababta la ajligeed waa uu ka diiday inuu markaas iyada ka aqbalo jaceylkeeda. iyadu waa ay diiday faraantigii xabadda ka samaysay inay dib ula laabato, waxayna u sheegtay in gacaliyaheeda kale ay siinayso faraanti dahab ka samaysaan. waxayna markaas yimaadeen meeshii ay faraantigu ku siinaysay, maadaama ay faraantiga aragtay waana fariin oo iyada u dirayay. wax walba oo runa ayuu u sheegay in sidoo kale iyada aabaheed qorshahan oo dhami ku soo daraya. sidoo ku yiri, dilka aabbahaagii waxa uu faa'iido u ahaa inaan wadanka badbaadiyo. hadeertan aragtideedii oo dhami ayaa sida isku badashay. waxayna u sheegtay in mar dhow ra'iisul wasaaruhu uu safar galayo, safarkaasna waxaa waardiye ka noqonaya Vikram. Vikram ayaan aragna waxa uu hor yimaaday madaxda ugu sareysa amaba burcada ugu waaweyn.
waxa uu rabaa inuu xadir booska ninkii la dil ee hindig ah uu galo laakiinse marka hore waxaa loo sheegay inuu kabiir iska horleexiyo waa uuna ballan qaaday kaafiya ra-iisul wasaaraha ayay la hadashay waxayna u sheegtay inay xadir kabiir ay wada joogaan kabiirna cadeymo badan u hayo isla markiiba meel khaas ah ayuu ku balamiyey mootooyin aad u badan ayaana goobta yimaaday iyaga ma haysan hadda meelay ku badbaadaan kadib fariin ayaa loo soo qoray oo loo sheegay inay hadda meeshooda joogaan cid kale ma iman cornel vigranti ayaa yimaaday oo dhammaantoodii meesha ku wada laayay cornel vigranti kabiir sidoo kale waa uu aaminsan yahay maadaama kabtaankii ka sareeyey wax walba ugu sheegay isagoo ku yidhi markaa garan weyd meela u baxsatid waa ina kabiir wacdaa waayo waa dagaalyahanka keliya ay qaybta dunida oo dhammi noo jooga ama wadanka oo dhammi badbaadinaya waxauna markaas uga waramay cadeynta in Vikram uu ka tirsan yahay qolyahaasi oo uu rabo inuu wadanka oo dhan u gubo halikii dambe ra-iisul wasaaruhu markuu soo degayo ilaalada ra-iisul wasaaraha Vikram ayaa ahaa balse waa laga bedelay waxaana laga dhigay ilaalada wasiirka isaga Vikrant ayaa ciidamada oo dhammi la wareegay wasiirkii markuu yimaaday meel khaas ayaana la siiyey waxauna u sheegay inuu isaga ammaankiisa ilaalinayo laakiinse markiiba ma dhicin sidii ayaa dhafoorka looga toogtay cid kale waxaan dhammi ma sameyn kabiir ayaa sameeyay kabiir ayaa sidoo kale saaxiibkiisii toogtay oo ku yiri tani waa badbaadada ay badbaadisid ee mar hore ayaan anna ku dili lahaa hadda Vikrant maadaama howshaas ku guul dareystay isla markiiba qolyihii burcada ayaa u yimid si aan isaga loo dalin waxa uu codsaday 24 saac oo kali inuu howshan oo dhammi ku soo gabagabeyn doono labadooda waa ay wada hadleen waxayna go'aan ku gaareen in si kafool ah ay hadda u dagaalamaan meel khaas ah ayayna markaasi ku ballameen laakiinse korneelku uu ka diiday inuu tago xitaa kaafiya arrinkaasi uma aysan ogolaan balse burcadkaas in la qabto waa lagu qasban yahay meel wada baraf ah ayayna markan iskugu yimaadeen Vikram waxa uu sheegay in maanta ay tahay waqtigii ugu dambeysay ee ra-iisul wasaaraha waayo ciidamada meesha jooga waa aniga ciidamadayda waxaanoo dhammi sidoo kale cornel Vikrant ayaa dhegeysanaya ciidamada markii ay dagaalka bilaabeen israsaaseen ayaana meesha ka bilaamatay ra-iisul wasaaraha sidii ayaana baabuurkiisii lagu geliyay labadoodana waxay markaasi bilaabeen inay wada dagaalamaan ilaa mar dambe ra-iisul wasaaraha duulimaadka la keenay laakiinse weli diyaaraddu ammaan ma aha qof walba oo diyaaradda saarna ayaana diyaaradda laga dejiyay ra-iisul wasaaruhu waxa uu la yaabay kabiirkan amarka bixinaya waxaana loo sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada khaaska ah isla markiiba kabiir dhaawac ayaa soo gaaray Vikram ayuuna sidoo kale dhaawacaasi saameeyay xiriirkii saaxiibtinimo ee qotada dheera haddeer xiriir cadowtinimo ayuu isku bedelay iyagoon aragno inay si cadowtinimo u dagaalamayaan ilaa markii dambe Vikram uu baraf caloosha ka galay hadda xaaladiisu aad ayay u xun tahay kabiir ayaan aad uga murugooday dhacdada saaxiibkiisa waxauna markaas u sheegay waxaad saaxiib i bartay sida loo noolaado Vikram waxa uu yiri weligay keligay ayaan ahaa go'aankaasna aad ayaa ugu khaldanaa saaxiibtinimada aan hadda dareemayo noloshayda weligay ma dareemin maalinka aan kaa soo tegay ayuu cadowtinimadaada i gashay dib ayayna bilaabay inay had u midoobaan waxauna u sheegay inuusan ra-iisul wasaaruhu weli ammaan ahayn qaybta hoose ee diyaaradda ayaa loo degay korneelka calooshiisa oo dhammi qarax ayaa ku jira sida ayaa duulimaadka looga tuuray kabiir ayaana badbaadiyey saaxiibkiisa muddo kadib saxaafadda oo dhammi waxaa laga gaday in falka oo dhammi Vikram ka dambeeyey Vikramna meesha lagu dilay laakiinse sheekadu waa isbedeshay kabiir ayaana bilaabay inuu raggaasi ugaarsado saaxiibkiisa Vikramna waa uu nool yahay labadooda wadanka ayay bilaabay inay u wada shaqeeyaan burcadaasi ayayna bilaabeen inay markaasi mid u ugaarsadaan sida ayay saaxiibtinimadoodii dib u soo laabatay halkan ayuu muuqaal ku dhammaaday la socda kankiisa ilaah idaankii mahadsanideen